وحويان برجي هره waxa la yiri guurku wuxuu ahaa inan baa waxa yiri aabihii uu ku yiri aabo labadaada suwaraba gabadhayda ka qurux badan guur hadana iga caruur qurux badan maxaa dhacay guur wuxuu raabaa dawad qurux guursatay adna war hidda guursaday adigu inan daaro qurux badan oo casbad rasad guursatay doonatay guur alla aabo hooyada إلا أن أقعد هويدا عدة دشي أو أقعد هويدا كلا عدة دشي أو أقعد عدة أبيه دشي أبيه كلا عدة شيء أنت أنا أقعد أبمان دون بوري فقعد نواد قروح لا يساوي أنا واحد تدل يا إسوي من كلام بوري إما كدور كانوا ليش على سكاني على سري ليش الراحة يندد كنا إما كمية قانو واحد جرى كلام ماها ويهد الدقمية ويكهد الدقمين ويهد عرارين والدور كي آد لوغو والدور كي آد لوغو طبعاً آد لوغو نفسري وأي واحد هداك كان يهدين هطي هويري لكنك هكذا هطاء ما دعفته أي واحد يهدى إناني الشاهر هيبوغا من بقى لا guursaday kala yaramo dhalay yaramadiisa ay dhaleen baa magaalada jooga xalay baa loo soo hooyay aqalkan oo kala dibadda looga dhisay sidii uu soo saaray wuxuu waa furayaa gabadha waxaan warbiyaad waarantay xalaabad keentay sidoo u furaysaa reerkooda inuu isqabsanayna noo silciyo waxa aad ku furaysan noo sheeg baa la yiri adeerayaan wuxuu yiri waa ogtii dumarku dhibta ay noo maro gabadha shar haloo ku arkay baana ay tahay baana qadayn buu yiri waa maxay baa la yiri wuxuu waa gabadh xoolo moog waana ayaan daran tahay waana dhaqasho xun tahay waana qudayo waana doqon buu yiri kow wuxuu yiri waa xoolo moogta xalay markii aqalka dibadda looga dhisay كواهيجي توقعنا نقل كورتي صدقي بول وحول موقته ما يحسوسنا يسوي رك كواها صاحر يقول وحول موقته تلقى فاكو عدينا يا بول وانا ايام درنت هذا والله ايام درنو كبير ما نبتقلنا دعوة هذا سيقولي احبيت تلميذ ايام له كواها نبتقل الهابول نبتقل يا ينقل لي وإذا خالح يقول تبكي حاولي برتك كسارتي بولي قرية أفكا وقماي خبانينه حاولي برتك كسارتي وبدخال حبولي إلا دخشا انت يلقى ساعتين يسابول وانت لعنهم سوى عروطه حاولي يسكو قراعدي بولي الداردي وحريت انت هبرتي تاتخاتكم حل خيخية واخويا وإلا هشتغني بحبة ترورنكو فريسقين وحاولي ودن ما نقصر سبب أغل فرم مواصلين أغل عسوب وحاولة كلا يقولك ها حاولي ودن وارساقنا يقولوا بس كان نحيا عالي وانا الدخار أموا معس أموا هم أموا دمنتها فرق السماع دور مقعد الله يغاني والدخار أموا هم أموا معسو waxaan ugu habeenka oo horeysa laba kaadi tago habeenka oo horeysa ugu ilaa cad har gaarayay war fadhiday tooti la ugu dhikay nugul ma kaadi taay tobanina taas cadeynayso hadda inta maxaan ka cadibayay waxa cadibayay haweenka taas hadda ka xumaatay sakala sidoo ku soo qabta adkay dumarku ma ahayn dumar kale imbika dumarkii hore waxa la yiri saddexdan lagu qabay saddexdan ku bedeleen saddexdan lagu qabaa la yiri dhiiban ku dhaqee iga dhalan dhunkade idaa ku dhagayste dumarkii hore saddexaasaan anagu ayaanu ku hayn jiray yiraaheen odayaashii waxay yiraahdeen saddexdan ka daba yimid oo qoladiina dalba keentay bay yiraahdeen iga dhalan ku dhigee oo ilmihiiba la tuuro iga dhal dhiiban ka dhaqde إدان دقاقي أرجع تبلش لسقي ميسان إلا هدي كلمة رجع هربا إلى صدقوا هم كوكا هاي صدق كنت بيجي بالي صدق رجع هرا كوها يالي حقا حلك صيبة يحلان حقا هو هذا
adeer baanan iyo magaaliyo meelo wax lagu kala qarsaa ma jira haddii laba neef la soo iibiyo intuu habarta u dhiba wala jiro ubbada inoogu shuba ma jiraabka ama abxadda annaga sanaaduuqdaydu abxad iyo jiraab iyo ohli iyo bay haayeen qumba iyo waxyaaba iyo qumbaha iyo ubbada iyabaa lagu shuban jiray oo waxa uu dhiibo xolkas buu hayadun buu hayn jiray xogagaalna wuu ahaayo haddii galaan hadhuuri caawa guriga yaal ama mid bariis yaallo ama inta miritaa lagu oga oo xogagaalna wuu haddee meel kale la kala qabtaayo ma jirin salkiisa samee reerkiisa wuxuu qabaa buu ogaa xallaana wuu ku qabo haween ayaanu qabin in lagu xataa adduunka ma jiri jirin baa la yidhi adeer saddexdaa ka dabayay banan saddexdaana saddexa dambe waxaa la idhahdaa la yidhi xero malihiyo xilmo saariyo xaalmo qabtaa la yidhahda xilmo saara waa mid magaalooyinka iga yimaado ayuba maalintii waxoogay helaya carruurtiisoo iska xaalxaal mastuuru ka soo kallahay wuxuu siisanayaa biidhigana ku waalateen iyo qaab carruurtiina wuxuu yidhi jifaydiskoo ka badan waanay dhadhawin xilmo saaraa la yidhahdaa la yidhi xaalmo qabtaa yimid waa mid bishii walba naag isagoo furayaad qaadiga ku aragtadaa la yidhi dee haddii xaal qabanaya naagtanu cisho walba markuu mid furo annaga dhaqankeegii ceeb bay ku ahayd iyo dhaqanka soomaalida maxay sameeyeen naaguma taniisay kee kaajeen iyo guriga wiilkii walba ma dadnima inuu naag fura waa dhaqan bi'is weeye waa dhaqan duwin ka ugu ladan waxa la yidhaha xero ma leho waxa la yidhaha ama dawlad ha u shaqeeya ama dawlada ka shaqaysta in qarash u haysta laakiin dhowr guri baa isla baa la yidhi mid walba aduunbu kugu gooni yahay oo cidi kuguma u heliso ka ugu ladani waa kaasi baa la yidhi haddaba dhaqankii sidaasu isaga daba imanaya annaga dhaqankayagu ekeeya waxa la yidhi wuxuu yidhi aabbo inantaad maanta guursad aad soo aragtay bal ka waran inan qurux badan oo degan oo aad u asluub la soo arka buuri aabbo inanta deganaanta hadalkeeda dawliilka quruxdeeda iyo dabacsanaanta kaaga muuqatay duntoodaad raacdaa ka fiican buu yidhi ood hiddaha iyo dhaqankeed mii hore raacdo ood ogaato aabbaheed cidda dhashay iyo hooyadeed cidda dhashay aabba buu yidhi inanta waa markii la odhan jiray aabba inantaad guursanaysaa shiif wiyilaad ha lahaato sidaa doonna ha lahaato shaah muuminna ha lahaato buuri waa markii la odhan jiray waxaa la doonayaa gabadhaan inankeeda darka laga riixin aabba gabadhii waa keenay buuhi caawa oo waanigan inantii keenay haddaba aabba gabadha aad caawa keentay caawa waa muu buu yidhi oo waa marti oo waa magan oo adigay magan kuu tahay oo reer kalaysa la keenay inay magan u tahay waa muu oo hadli mayso waa marti oo waxaana afka u gelin caawa cuni mayso buuri waa basa reerka looma soo guursa buuhi maxay cuni weyda aabba waa toddobaday cir yartay cod yartay camalsan tahay buuri way xishoonaysaa hadli mayso oo waxay ahayd dee waxa la odhan jiray waa hadal badanta waxyaabo badan oo maanta qoladiina dambe ku faantaan ayaa xagga iyaga ceeb ku ahaa ceeb waxay ku ahaayeen waxaa la odhan jiray tani waxbay cuntaa oo way cir way tahay laakiin maanta waa gabadha wateed haysa baa tiraaheen adugu oo waxaa ku darteenba ammaan baa ka dhigteen ma maqasheen annaga waxyaabo badan oo ceeba baa jiray waxaa la yidhaahto 4 hablood baa soo heermay kolkaas waxaa jira 10 noocdaa dumarka loo guursan jira horta inanku ruuxa dumareeku soo gashaa 10 noocuun bay ahayd laba waxaa la yidhaahaa sahan dumar oo sahankaa dumar maxay ku ahaayeen qola way heermi jirtoo hablaha iyagoo ay ku kalifayso yarad badan baa lagu xidhi jiray waa la xanibi jiray marka aynu ka soo qaadno heerinkaa markaynu ka soo qaadno waxaa la yidhi inan heerin hayb ma eegta baa la yidhi inan hadday heerin tahay iyaba hayb ma eegta baa la yidhi o kay heshaa waa nasiibkeed ama mid faruuran ha hesho ama mid dhagala ha hesho ama mid indhala ha hesho ama oday gabooba ha hesho heerin hayb ma eegta baa la yidhi mar hadday gayaanka isguursan jireen unu yahay iyadu kaasay ku dul dhacaysa
kolka afar hablood baa reer yimid reerkii baa sooriyeeyey aqal baa loo dhisay aqalkan oo kale waa la dhegaystay midi waxay tidhi inta isdaaweertay alla kulula kaba naalle aan kaba fadhina intuu inoo qaboobayo ayay ka wada midna waxay tidhi na kadhan weyna kala go hore haa waayo shalay soo baxeen xalayna cid bay arag aad bay u gaajoonayeen xaa way soogaan waxay tidhi naay hore inoogu kala goy ha iska kululaade kadhan weyna kala go midna waxay tidhi alla kulula kaba naalle midna waxay tidhi nahanka foofe korka saaf midna waxay tidhi naha qaboowe kuri waa la wada dhegaysanayaa tii tidhi kulula kaba naalle iyo tii tidhi halka foofe korka saar halkii baa lagu guursaday qoladiina dambe oo annaga labada kale laba hunguri weyn bay noogu qoraaye laakiin qoladiina dambe tan tidhi kadhan mayna kala gooyiyo iyo ta tidhi qabaweyn kurid baa ka jeclaan lahayd baan u malinayaayo abateed baan haysaa ayay gabadha leedahay iyo baan idinka maqlaa imaka waxyaabo laakiin annaga gabadha hunguri weyn bay hay oo heerinku noocaasuha mid kalaa jirtayoo iyaduna nooca sahan dumar la idhaahdo guurka ka mid ahoo iyadu dadka kama dhaxayso nin bay soo sahansanaysaa ama xaasa lahaado ama yuu lahaan insha allahu 3 ha lahaado way u soo gashaysaa wy mar hadday soo gasho gabadhaas dhaqankeenni iyo hiddaheenni ceeb buu ha in la saaro haddii gabadhaa guriga laga saaro kontonkeedii waa in la raaciya reerka intaan reerkay ka dhalatayda ogaan ayaa reerkay u soo gashay qabeen inay hogmanayaan inan ilmada waa gurigii